ma ogtahay culays kasta iyo dhibaato kasta ee nolosheena nala soo dirista ma aha kii ugu horeeyey mana ahan kii ugu dambeeyey. dabcan waxaa jira dhibaatooyin fara badan, culaysyo fara badan oo had iyo jeer la kulmno, waxayna ka mid yihiin imtixaanka nolosha. insha allah videoga maanta waxaa jeclaystay in aan isxusuusino mar kastoo aad dareemno in aan ku sugnahay xaalad adag, xaalad cakiran, xaalad oo problem ama xaalad jiqkaaga jirto, in aan haysano laba dooq oo aan samayn karno. dooqa koowaad waa mid aanan waxba ka qaban karin, dooqa labaad waa mid aan wax ka qaban karno. markastana adiga ayaa ka mas-uulka ah dooqa aad markaas samaynaysid. tusaalahaan haddii aan rabo maanta in aan banaanka u baxo, banaankan uu roob badan ka socdo, anigana aan rabin inaan roobkaas uu igu do-o, waxaa haystaa laba dooq. dooqa koowaad sidaa soo sheegnay, wax ma ka qaban kartid oo control ma haysid. banaanka intaa u baxo ma awoodo in aan roobkaas istaajiyo, waana mid ka mid awoodaha allah subxaana watacaala uu roobka istaajiye, roobkana keena. laakiin waxaa awoodaa oo controli karaa in aa maaragtay qaato dalad ama meel aa kaga gambado roobkaas si uusan igu do-in. marka labadaas dooq ayaa haysana markasta, dooq aa wax ka qaban karto iyo dooq aadan waxba ka qaban karin. dhibaatooyinka nolosha nala soo darista way fara badan yihiin, oo tusaalahaan waxay noqon karaa shaqo aa ka shaqaynaysay muddo dheer oo lagaa joojiyey, qof aa muddo dheer wada socoteen oo jaceyl iyo waxyaaba niga dhexeeyeen oo aa kala tagteen ama meesha xiriirka kuu jaray. waxaa dhici karta imtixaan aa muddo dheer soo diyaarinaysay oo aa ku hami weyneed inaad ku baasto oo aa ku dhacdid, iyo caqabado fara badan oo nolol maalmeedkeena nala soo darsa. marka tusaalaan imtixaanka kale haddii aan soo qaadano, dooq aa haysano mid aan kontrooli karin waa inaan ku mashquulno macalinka soo diyaariyey sidoo noo soo baray qaabdaradii iyo dariiqadii xumaa oo maaragtay dadku wax u bari jiray, iyo fasalka iyo imtixaanka su-aalaha inay adkaayeen oo keligaa gooni lagu adkay. waxyaabahaas intaan ku mashquuli lahayn waxaa ka fiican in anaka dib iskugu laabano oo aa fiirino waxyaabaha aa soo sameynay iyo sidaa wax ugu bedeli karno, sidaa ugu soo diyaari garoobi karno imtixaanka soo socdo waqti fiican, iyo sida aa ku baasi lahayn inaa ku talagalna. sida shaqadoo kale ma aha inaan dhahdo booska waa nin fiican ma ahayn, shaqada dad kale iga siiyey waa cunsuri saas. marka qof kale in aa fiirino ma aha, waa in anaka isku laabanaa oo mas-uuliyadda aa qaadanaa. marka mas-uuliyadda qof kale ku wareejiso waxay noqonaysaa adiga controolka dhan waa wareejisay, qof kale ayaa haayo ama controolkaada gacanta ku hayo. markasta oo adiga la soo wareegto mas-uuliyadda ama maaragtay responsibilityga adiga gacantaada soo geliso, waxay u badan tahay in aad ku fakirto jidka ugu gudbi lahayd. waxaa fiican inaan fiirino waxyaabaha ka baranay, waxyaabaha ka qaban karno, iyo si aan noogu soo laaban inaan ficilo ka sameyno. markasta nolosheena go-aamada iyo ficilada aan sameynayno iyo maxaa ku dhaha dooqyada aan sameynayno anakaa mas-uulka ah. ugu dambeyn anaka ayaan weydiin doonaa. videogan waa mid iska kooban oo aa kugu xasuusinaya ama isku xasuusinaynay markasta waxaa haysanaa laba dooq, waxaana fiican dooqa oo aa adiga xakameyn karto oo aa wax ka qaban karto. waa mahadsan tahay. haddii aad isleedahay videogan waxaa laga baran karaa ama waa muhiim, fadlan la wadaag asxaabta. waa mahadsan tahay. waa anigoo ah cali maxamed ismaaciil baashi ee kuleh mahadsanid.